runtii meesha hadda waxaan taaganahay uu dab ka qarxay ee suuq ahayd dhibaatadaasi dhibaato runtii la wada gaadhay weeyaan magaalada Dirdhabo iyo deegaanka Soomaalidu xilka ay leeyihiin waan ka daragsanahay shacabka Dirdhabona shacab maaragtay runtii ganacsiga caan ku ah weeye waxa maanta gubtay waa ganacsigoodii marka waxaan u nimid koow inaan garab istaagno maamulka uu hogaamiyo maayarka maamulka magaalada Khadiir iyo shacabka magaalada inaan garab istaagno sidoo kale inaan kaalinta nagaga aadan hawsha aan ka qaadano oo muxuu ahaa iyagu hadda kahor markii uu dabka ka kacay jijiga maamuladii ugu horreeyey noo soo tacsiiyey noo yimid wax la qabtay ahayd marka anaguna waajibkaasaan saaran marka maanta inaan halka soo gaarno waan ugu darno lacag gaaraysa 20 milyan oo bir yaan go'aansanay taasoo degdeg aan ugu wareejin doono si ay maaragtay wax weyn uga qabato dhibaatooyinka halka ka dhacaya baahida meesha taalo madnaasintii ሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የክቡር ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጣፌና ምክትል ፕሬዝዳንቶቹና አጠቃላይ የካቢኔ ልኡካን ቡድን ይዞ እዚህ ተጎብኝቷል ማንታ waxa goobtan gubatay soo booqday waftii hogaaminaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha ku-xigeenka mudane Ibrahim Cusmaan iyo kabinetkiisii isagoo madaxweynuhu markay hawshan sidaas u dhacdayna khadka teleefanka igala soo hadlay murugtana nala qaybsaday waxaana maanta farxadii ah inuu goobjoog u ahaado meeshani waxaan u mahadnaqayaa aan ku hadlay magacayga iyo magaca ismaamulka Dirdhabe madaxweynaha xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida iyo shacabka deegaanka oo noqday deegaankii u horreeyay ee 20 milyan noogu deeqay in la iscaawiyo waa dhaqan aad u sii xoogaysanaya isbeddelka kadib